waan ku salaamay. Magacaygu waa Yuusuf, waxaan ahay ganacsade. Sida aad arkayso maanta waxaan isku diyaarinayaa inaan alaabo kala duwan ka soo dejiyo dekedda Muqdisho. Waxaan ogahay haddii aan rabo inaan alaabo ka soo dejisto ama aan ka dhoofiyo midkood dekedda ama aeroboortka Muqdisho in laga doonayo buuxinta foomka caddeynta ee furdooyinka ee loo yaqaan SOMSAT. balse waxaan qabaa su'aal. waan kaa qaadnay salaanta. aniga magacaygu waa Cabdi, iyaduna waa Xaliimo. waxaan ka wada tirsannahay shaqaalaha furdooyinka Soomaaliya. waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawino in aad si fudud alaabtaada uga soo degsato una dhoofsato. maxaan kaa caawinaa maanta? hagaag, si aan u buuxiyo foomka SOMSAT waxaan ogsoonahay in layga baahan yahay inaan kala saaro alaabtayda iyadoo la isticmaalayo habka nambarka ee badeecada ee loo yaqaan commodity code. haddaba sideen u sameeyaa? haa, waad saxan tahay. nooc walba oo ka mid a alaabtaada waxa ay leedahay nambar badeeco oo iyada u gaar ah. nambarka badeecaddu waxa uu qayb ka yahay habka loo yaqaano HS oo ah luqad ganacsi oo ay dunidu isla fahansan tahay. habka HS waa hab koobaya badeecadaha iyo noocyadooda iyada oo mid waliba leeyahay nambar u gaar ah laguna kala saaro. foomka SOMSAT ee Soomaaliya hadda waxa uu leeyahay ilaa 6 god tiro oo lagu kala saaro alaabta. haddaba nooc waliba oo ka mid ah alaabtan kala duwan ma wuxuu leeyahay nambar badeeco isaga u gaar ah? haa, taasi waa sax. mid waliba oo ka mid ah alaabahan kala duwan wuxuu leeyahay nambar badeeco oo isaga u gaar ah, waxaana waajibkaagu yahay inaad ogaato nambarka saxda ah ee alaabtan. sideen ku ogaan karaa nambarka badeecada saxda ah ay leeyihiin alaabahayga? waa muhiim marka hore inaad waqti badan geliso oo soo kala ogaato nambarka badeecooyinkaaga ka hor inta aadan buuxin foomka SOMSAT. tani micnaheeda waa inaad soo baartaa ka hor inta aadan buuxin foomka. waxaa jira 3 hab oo fudud oo aad ku ogaan karto nambarka badeecadaada. habka ugu fudud waa inaad la xiriirto wakiilka furdada ee aqoon u leh ama dulaal, kaasoo kaala talin doona qaabka aad u heli karto nambarka badeecada HS code, maxaa yeelay iyaga ayaa aqoon u leh oo fahamsan nidaamka HS. midda labaad, waxaad ka eegi kartaa buugga ururka furdooyinka adduunka ee loo yaqaan WCO Harmonized Community Description and Coding System ama buugga canshuuraha ee furdooyinka Soomaaliya, kuwaas oo laga heli karo xafiisyada kala duwan ee wax laga soo dejiyo lagana dhoofiyo. midda saddexaad, waxaad ka baari kartaa internetka nambarka badeecada ee alaabtaada kadib meel gaara ku qoran nambarka kuu soo baxa si aad hadhow ugu buuxiso foomka SOMSAT. taasi waxay u muuqataa mid fudud. waa maxay nambarka badeecada cabitaanka orange? haa, waa muhiim. haddaba la soco hadda kadib cabitaanka oranjiga wuxuu ku jiraa qaybta cabitaanada. sidaa awgeed nambarka badeecada HS Heading Code ee cabitaanada waa 2009, laakiin maadaama cabitaanadu kala duwan yihiin, tusaale cabitaanka oranji, cabitaan tufaax iyo cabitaan yaanyo, waxay sii kala leeyihiin nambaro kala duwan. oo marka qayb walba oo ka mid ah badeecooyinka ma waxay sii kala leeyihiin nambar badeeco iyaga u sii gaar ah? haa, waa sidaas. alaab kasta oo aad nambarkeeda baarayso waa inaad raadisaa nambarka badeeco ee guud iyo kan gaarka ah. haddii aadan hubin, fadlan la xiriir wakiilka furdada ama dulaalka, isaga ayaa kaala talin doona iyo sidoo kale alaabaha la dhoofinayo. hadhow marka aad buuxinaysid foomka SOMSAT waxaad si fudud u fiirin kartaa nambarada badeecada aad sida gaarka ah u qoratay. aad ayaad u mahadsan tahay. hadda waan isku kalsoonahay. waan aqaan sida aan u kala saaran kara alaabtayda marka aan isticmaalayo SOMSAT anigoo adeegsanaya nambarka badeecada. adaa mudan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. haddii aad rabto faahfaahin dheeraada oo la xiriirta muuqaalkan, fadlan la xiriir furdooyinka Soomaaliya Revenue Directorate at mof.gov.so.